kulanti wanaagsan daawadayaal waa toddobaad kale iyo barnaamijkeennii hindisi halabuur toddobaadyadii way kala xiisa badiyeen toddobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ah abwaanka weyn cismaan ibraahim warsame oo loo garan og yahay hurre walanwal hurre waa abwaan weyn oo caana oo suugaan far badan leh bal marka hore abwaan kusoo dhawow waraysigan aan kaa qaban doono kusoo dhawahay aad baan idinku mahadnaqay aad iyo aad baad mahadsantahay annagana sharaf bay noo tahay inaan kula kulanno oo waraysiga kanaan kaa qabanno mawduuceenu wuxuu noqon doonaa nabadda iyo colaadda kaalintii markaa uu gabaya ku lahaabeen doonina inayan dul istaagno bal ugu horreyn waxaad ka warantaa kaalin intee leeg bay suugaanta ku lahayd colaadda colaaddu gabaygu beleda waana kiciyaa waana damiyaa dee guba oo kale ka soo qaad wixii kiciyay ee ugu badnaa ee dhibaatada dalka dhex martay isagoo gubooha in badan oo kalena waa laisku damiyey waa lagu damiyey in habeenna casheeyey inuu caafiyadiisa cabaar meel la fadhiisto caqligaani galayno ceryaanan hadh lahayn iyo cadar ba isugu toosan salaan carabeebaa leh laba qabiiloo iska hor yimi oo isu soo hub qaatay oo waxba aanay ka maqnayn oo dagaal usoo diyaargaroobay in isdhex taago oo ku kala dareeriya gabaygaas salaan carabe ayaa jiray yaan odhanina yaan maqla waxaa suuragala in qaar kalena jiraane soomaalidu waxbay hadhow naanaysa tirada ujeedu ka lahaayeen waxaan ka warayaa suugaantu waa dabhuris daqonkii ogaadeen lahaa dowla laga qaadiy loo diidanodiyo hadduu degi lahaa ciidateratolooyo faafan u wada diraabayo deegaanta xagarhay ku taaldaaqi mahayaan gabaygii ka bilaabmay dee waxaad og tahay dalka uu maray iyo dhibta u geystay xaggan sukana markii laga galay dee dadkii iyagu isu jawaabeen laakiin dadkii dhex joogay bay gubeen gubniinkan laleeya guba waxay ahayd dadkii dhex joogay baa gubtay oo dalkii baa gubtay oo dunyadii baa gubatay markaa suugaantu qaybo liba waxay ka qaadataa labada shayba colaadda kicinteeda iyo daminteeda labadaba dadka caaligalaysa ku daraadir iyo qoomaal turba waranka way isula degdegay dooxanaha maran waa dawri buuhoodlahay diru lahaayeen indhaweyda dabataa fadhiday daalin oo cola tardhacdii shubaysiiya loodi dabood waayo aragna tusaalena waa yahay oo kaasaad ku garanaysa tusaalena waa yahay marka suugaantu qayb libaax bay ka qaadataa dee dabka shidistiisa iyo damintiisa labadaba colaaduna waxay ku kacdaa marka ugu horeysa waa ciilkaaga iyo isyalyeel haddaad aragto colaad raagteed oo caaqiibadeedii la waayay dhib bay reebtaa hiir bay leedahay hiirta raagtaa waa mashkilad nabadda sida loo soo celiya waa adag tahay laba shay baa ka qayb qaata nabadda midi waxa weeye magto aan ka ahaanin diyadoo aan hadhiisa yeelan midna waa gabdhaha aadmiga qardofiya colaad reebta qaranqaaro khilaafiya dareen waa dhex yiiltan iyo qaabiile haliya qaamudkii gale hadduu qaatif kala gooyo oo ay qurgooyadu fidiya qaraxa baaruudu qabna kuma dhammaatayo fidmadu sidagsi khayraan wuxuu qira heshiyaa ragii qofku kala gaadhay waxaanad qisaasnaa furta iyo qabi nin loo haysto oo duudsi qaawane ka dhiga qafo iyo lool marse haddaanay hadqadiyo bixin qolada eedowday qablo 10 dharaarood fidmadu waa qumbacataa gabdhaha dabdamis runa waxaa bixinta hablaha
inaan odhanna maaha inanta laba qabiilo ku nabadaa tan iminka la keeno maaha golayaasha lagu bixiyo iminka waxaa la yidhahdaa iga wareeji magac dhow baa la yidhahdaa laakiin tii hore xul bay ahayd oo nabadda waxaa loo xuli jiray inaan lagu nabdaa baa la dooni jiray waa idin diyaar baan waxay su'aalaysaan aad iyo aad baad u mahadsantahay sidii wanaagsan ee aad su-aasha u faahfaahisay welibana aad waxa weeye gabayada qaar aad xustay sida salaan carabiga kale iyo silsiladii gubo kale su-aasha labaadan ku laraya waxa weeye waagii hore intaan soomaalida dowladnimada soo gaadhin dadku kun had iyo jeer dee daaqsin wadaagtahay oo islaynayaan sidee markaa odayaashu beriga hore colaadda ay u xallin jireen colaad wacad buu ugu horeeya nabad wacad buu ugu horeeya wacadkuna kan maaha in iminkaadi la mare ee dee mid runa buu ahaa wallay qabaan haddaad maqasho beenis ma lahayn marka odayaashu dee eeldamayaa jiray ragguna waa bayaan raacaya eelbakhtiyaha iyo eelbakhtiyaha iyo baydhka iyo samirka iyo baahireebaha haddii mid kale soo baxana baradu waa goob eelbakhtiyaa jiray eelbakhtiya waxaa la yidhahdaa ninka colaada damiya kunaad reega iyo laba qabiileeda kala gaadhay garmadoobe kibir lagu diliyo gagana la aloobay karaabido tarantiya gandiya xaaja lagu guulay gaftareebay waxaa loo guraa eelgamaarshaha kadaahibta loo diray haddii loo gadbixi waayo markay talagu raacantay arrin fadalgarmaamayso haddii oday gadoodsana ka kaco madasha geedjooga u gobaysane iyo meesha iyo guba ka mahmaaho ama uu ilaa maargamiya gadowga taataabto ereyada gayaxmaran rugaha gumuca loo aasay gabaan baan walee furin murtida guurtii huga saartay odagu wuxuu ahaa jiridaasan wuxuu ahaa nabatalis wuxuu ahaa belajooje wuxuu ahaa wacad xidhe wuxuu ahaa niman looga dambayn hadalka oo lagu kalsoon yahay nabadda isagaa keeni jiray isagaana go-aamin jiray isagaana dhammayn jiray wax kala qayb qaatana waxaa jiray ninka maqlaya iyo gabadha reebka la yidhaahdo labadaasa kala qayb qaadan jiray saddex shay baa kala qayb qaato mid waa guuyada la bixiyo midna waa maqlaaga qaata talada midna waa inanta godobreebka saddexdaasa nabadda iyo odagaa talinaya afarta weeye nabadda kelxidhaheedu waa sida aad iyo aad buu mahadsan yahay barnaamijka intaa waxaynu kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeenii hindisi halabuur oo toddobaadkan ka imanayay magaalada burco waxaana marti ku ahaa abwaanka weyn cismaan ibraahim warsame hurre walawal aad iyo aad baad abwaan u mahadsan tahay sidii wanaagsan ee waxa weeye waraysiga qiimaha badnaa aad noo siisay sidoo kale barnaamijka waxaa ila daadihinayay yaasiin axmed oo ah nin isaga qudhiisu dhaqanka iyo suugaanta wax badan ka fahansan aad baan idiin salaamanaa intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmi doono waxaan kaga teganaa sidaas iyo ammaano alla iyo kulan dambe oo xiiso leh